السلام عليكم magacaygu waa Amiin halkaad naga daawanaysaan waa kanaalka Faraxlow maanta waxa rabaa inaan idin la wadaago xaqiiqooyin ku saabsan dalka Kazakhstan dal laga cuno hilibka faraska Kazakhstan waa dalka adduunka ugu weyn ee aan bad lahayn ahna dalka sagaalaad ee ugu dhulka weyn adduunka caasimadda Kazakhstan waa Nur Sultan oo ku taala gobolka Akmola Kazakhstan waxay u qaybsantaa 14 gobol oo kala ah Akmola, Aktobe, Almaty, Atirabu, East Kazakhstan, Jambil, Karaganda, Kostany, Kizilorda, Mangenistabu, North Kazakhstan, Pavlodar, South Kazakhstan iyo West Kazakhstan. Kazakhstan waa dal laca ku taal bartamaha qaaradda Aasiya iyo bariga qaaradda Yurub. Kazakhstan dadka ku nool 67% waa dad Kazakh ah halka ku dhawaad 20% ay yihiin dad Ruush ah inta soo hartayna waxay ka kooban yihiin qowmiyado kale waxa kaloo la sheegay in tufaaxu asal ahaan ka soo jeedo dalka Kazakhstan sababtoo ah magaca magaalada Almaty dhab ahaan waxa loola jeedaa meesha ugu tufaaxa badan xitaa dhammaan kaymaha ama duurka Kazakhstan waxaad ka heli kartaa geedo badan oo tufaax ah cuntada qaranka ee Kazakhstan waxa lagu magacaabaa peshparmak maxaa yeelay waxaad u malaynaysaa inaad ku cunayso gacmahaaga peshparmak waa pasta leh hilibka faraska dushiisa hadda waxaad isweydiinaysaa Kazakhstan hilibka faraska miyay cunaan ha dabcan waxay cunaan hilibka faraska si kastaba ha noqotee balse sharciga ayaa sheegaya inaadan cuni karin faraska aad fuusho Kazakhstan waxay noqdeen dalkii ugu horeeyay ee midowgii Soviyetkii hore ee hela qiimeyn maalgashi caalami ah oo wanaagsan sanadii 2002 kadib markii ay iska bixiyeen deymihii ay ku lahaayeen hay'adda lacagta adduunka ee IMF Kazakhstan waxay xuduud la leedahay dalalka kala ah Ruushka, Shiinaha, Kyrgyzstan, Uzbekistan iyo Turkmenistan luqadda rasmiga ee lagu hadlo dalka Kazakhstan waa Kazakh sidoo kale luqadda Kazakh waxay in badan isu eg yihiin luqadda Turkiga haddii aad luqadda Turkiga taqaano ama aad ku hadli karto way ku fududahay 70% inaad ku hadasho luqadda Kazakh maxaa yeelay qarnigii 5aad ee miilaadiga waxaa deganaa Turki badan sida awgeed luqadda Kazakh iyo luqadda Turkishka waa luqad isku mid ah Kazakhstan badkiis wuxuu gaarayaa 2.72 kilomitir square waxaana ku nool kaliya 18 milyan oo qof waxaana ku soo aadaysa 7 qof 1 kilomitir square oo dhul ah muuqaalkan halkan ayuu ku dhamaaday waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay haddii aad muuqaalkan ka heshay ha ilaabin inaad ku soo biirto kanaalka Faraxlow adigoo taabanaya qoraalka gaduudan ee subscribe sidoo kale aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga muuqaalka xiga waxaan u rajaynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xisnay inaan soo laabano mac salaama